wareejinaya xarunta taliska guud ciidanka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne ku soo dhawow xubnaha golaha wasiirada mas'uuliyiinta kale ee qaranka iyo tababarayaasha dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxay noo soo dhammaaday tababarkii muhiimka ahaa ee gogol xaadhka shaqada golaha wasiirada ee labadii maalmood ee u dambeeyey أيضاً تليس كعيداً كبوليس كتشبولين السبلات كقاعدتين تليها يعيداً كبوليس كبوا مهطنا غينا وهنما يلو سيادة وودرتين وانت أسا لكتر كيسي وكان يرى لكتر هذه كلا شنك وقهرين وهن يكون بقادينية مضان أيالية مرويين كغيب قل كتابركة مسكحة iyo waqtiga aad geliseen iyo nuxurka qiimaha badan ee ka soo baxay maskaxahaas kala duwan aad isu geyseen labada maalmood idinkoo ka faa'iideysanaya maskaxda iyo waayo-aragnimada tababarayaasha waxay ahaayeen laba maalmood oo aad dejiseen saas fiican وأنا أمسناهاي إن البربلة ونقول دانتو جديد يسبدل كتوجن يوح قبضك يقرن كين وهذا السبب من الكتاب سيدا وقرف البدن إنه ميدا كرنا دلالين سيدا إنه كرن دانو فهم كين يعقبضها كذا أي تهاي إنه سكاشرنا daaweeyntooda waxaan idinka filayaa in aragtida fahamka iyo aqoonta aad labadan maalmood isla meel dhigteen ay dhaqso uga muuqan doonto shaqada aynu qaranka u hayno walaalayaal waxaynu ubadeena nagu dooratay maaha abaal celin ama inaynu dadka kale ka fiicannahay balse waa tuhun iyo dareer ay ka qabeen inaynu wax ka qaban karno baahiyaha iyo galdalooyinka ay tabayeen inay jiraan waa mas'uuliyad aad u culus si aan taas u guto ayaan aniguna idiin soo xushay inay idin noqotaan jaalkii iyo baalashii iga caawin lahaa gudashada واجبك عروس maalintan xilka la wareegay waxaa naftayda ka mamnuucay dulmiga musuqmaasuqa khiyaamada eexda iyo ka habrashada xaqa waxaan idinka rajaynayaa idin faraya inaad ka dheeraataan arrimahaas ugu dambeyntii waxaan u mahadnaqayaa aqoon-yahanka
iyo culimada diinta ee labada maalmood waqtigooda iyo maskaxdooda u huray qaranka waxa inoo xiga waa inaynu shaqo u dhaqaaqno waxaanan alle ka baryayaa inuu tubta toosan inagu hanuuniyo inaguna garab galo gudashada xilka qaranka dhammaantiin waa mahadsantihiin tababarkiina wuu inoo xidhan yahay wassalaamu calaykum